madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa waxa uu ka hadlay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. Madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa cambaareeyey qaraxyadii ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada magaalada beledweyne, waxaana ku geeriyooday qaraxa lahu naxariista xildhibaanad aamino maxamed cabdi, xildhibaan hore cali cabdi dhuxul, mas-uuliyiin kale iyo dad shacaba. Madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in cadowga argagixisada mar waliba ay qorsheynayaan xasuuqa dadka waxgalka u ah bulshada, islamarkaana ay tahay in meel looga soo wada jeesto la dagaalankooda. Madaxweynaha ayaa waxa uu u tacsiyadeeyey ehelada, qaraabada iyo dadka shacabka Soomaaliyeed ee ay ka baxeen halyeeyada waxgalka ahaa ee ku geeriyooday qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne. Ugu dambeyn, madaxweynaha ayaa faray hay-adaha ammaanka inay baaris degdeg ah ku sameeyaan qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. Agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalulshe oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in qaraxii lagu dilay xildhibaanad aamino maxamed cabdi inuu ahaa mid siyaasadeysan islamarkaana lasii qorsheeyey. Sambalulshe oo la hadlay VOA-da ayaa waxa uu sheegay xilliyada qaraxyadu ay dhaceen inuu ku sugnaa meel u jirta waxyar, islamarkaana dadka ku dhintay ay yihiin mas-uuliyiin, dad shacab ah iyo askar. Waxa uu hadalkiisa intaa ku sii daray xilliga qaraxyadu ay dhacayeen inay soo dhammaatay doorashada kursiga Hoob 63, sidoo kalena la guda galay doorashada kursiga Hoob 11, balse qaraxyadu ay dhaceen. Kusimaha taliyaha booliska beledweyne Bashiir Cadaani ayaa waxa uu sheegay qaraxyadii xalay ka dhacay beledweyne inuu fuliyey qof isku soo xiray jaakad ka samaysan walxaha qarxa, sidoo kalena gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa uu qarxay. Taliyaha oo warbaahinta kula hadlay goobta mashaqadu ay ka dhacday ayaa waxa uu sheegay in si rasmi ah weli loo ogaanin dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxyada. Waxa uu hadalkiisa intaa ku sii daray sidoo kale inay wadaan baaritaan la xiriira tirada rasmiga ah ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne, baaritaanna ay ku wadaan. ka dhaca hadda meeshan taaganna isbitaalka hortiisa oo inta ku dhimatana weliba tirikoobkeer aan ahayn ilaa hadda, oo dad aad u fara badan ay ku dhammaadeen, iyo qaybta siliga oo iridda oo idina qarax kale oo ka dhacay oo ismiidaamis oo qof jaakad xiran ah. Marka ilaa hadda ma soo koobi karno dhimashadii intay aheeday, laakiin dad aad u fara badan waaye, xilli gaaban ay aheeday. Waxaan leeyahay inta dhimatana Allah u naxariisto, dagarqaba qarxiyey, tirikoobkii iyo saxdiina waa keeni doonaa. Haddana waxaan ku shaqo jirnaa, weli shaqadii aan ku jirnaa. Bawr islaamada ku baabaaday, dadkii hanti dad ku baabay. Waxaan leenahay inta dhimatana qabrigooda qare Allah ka siiyo. Dad dagarqabeelaha soo gaaday ilaa haddana waxaan ku tala jirnaa oo xaqiijintii aan ka rabnay inta dhimashadu tahay iyo inta dhaawacu tahay. Waana soo sheegi doonaa hadduu Ilaahay dadka mas'uuliyiinta wallahi waxa ku jiray xildhibaanada oo ku jirtay aamino, xildhibaan musharax kale oo ku jiray oo bartaan ku dhintay oo la yiraahdo dhuxul, oo hadda magaciisa aanu u sii diri karin. wixii marka xaqiijinta dib aan kaga sheegi doonaa, warbaahintan la wadaagi doonaa hadduu Ilaahay markii qasaaraha dhaawaca iyo tirada rasmiga ah oo hadda haystaan wallahi xil gaaban oo habeenimana waa aheeday. tiradii hadda qof walbana qofkii dhaawac ahay iyo qofkii dhimashay la carara, dad xaafadda loola cararay. Isbitaalkii aad aragteen afaafkiisu saan yahay, isbitaalka aragteen afaafkiisu saan yahay oo baabaayba. isbitaalka door taagan dadkii dhaawac la geliyahay waa isbitaalkii dhamay baabaaba. qaraxii koowaad wuxuu ahay qof ismiidaamina oo wuxuu siliga u galay qaybta siliga afaafka hore. qaraxii labaadna wuxuu ahay gaari nooha oo ku qarxay halkan aad arkaysiin oo isbitaalka hortiisa. marka labada qaraxsaasi kala ahaayeen, dadkii dhimashadoodii iyo inta dhaawacana hadda ma xaqiijin karno, ma soo kontrol ka dib aan ku sheegi doonaa hadduu Ilaahay qaraxa halkan gaariga ka qarxo kaleeta wuxuu hal mar ka dhacay waa qaraxii waagii Cumar Xaashi. qarax lamida qarax halkan ka dhacay oo gaariga halkan ku qarxay, qarax lamida qaraxaas aan ka arkay.
wallahi taas lama xaqiijin karo soo koobi karo iyadoo saanan ka diganaa warbaahinta waran sii doon waxaa sidoo kale dhacdadan siyaabo kala duwan uga hadlay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbi mucaaradeedka Wadajir. bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. caawa waxaan ummadda soomaaliyeed usoo hor istaagay in aan ka tacsiyeeyo aamina maxamed cabdi geeridii naxdinta laheyd ee ku timid ee caawa fiidkii. waxaan leenahay ilaahay samri iimaan allah naga wada siiyo, iyadana naxariistii janno allah ka waraabiyo. xildhibaan aamina waxay ahayday qof aqoon-yahan ah oo cilmiga adduunyada iyo kii aakhiraba isku baratay. wadaadad ayay ahayday diinta islaamka si fiican u taqaano. qof aqoon-yahana ayay ahayday oo ilaa masters degree haysata. macalimad ayay ahayday, murabbi ayay ahayd, tacliinta iyo barbaarinta muddo dheer kasoo shaqeysay. xildhibaanay soo ahayd, maantana waxay beledweyne u joogtay berri in la doorto kursigeeda. aamina waxay u taagnayd dadka soomaaliyeed ee codkoodu gaaban yahay inay codkeeda ku kabto oo ay u hadasho inta xuquuqdooda lagu tunto, inta la gardaro, inta sharciga lala hareer maro ayada oo tacadi lagu sameynayo ayay mar walba u taagneed. anay u hadli jirtay qof dhiiran, xaqa ku dhiiran, dulmiga diidan ayay ahayd. waxaanan aaminsanahay in ay ajashi ilaahay ka sokow asbaabta ay u dhimatay ay tahay intaas waxa ay u taagneyd. waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee aamina ay ka dhimatay inaan u tacsiyeeyo, oon ilaa samri iimaan allah naga wada siiyo, gadaasheedna ilaahay nama fidneeyo. sidoo kale waxaan u tacsiyeynaa waalidiintii, ehelkii iyo qaraabadii ay aamina ka baxday.